Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCD oo ka qayb galay shir ay wada yeesheen madaxda maamulka Khaatumo iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Silaanye oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in magaca Soomaaliland laga bedeli doono haddii la isku afgarto isla markaana qorshaha xisbigiisa ay ugu jirto haddii uu ku guuleysto madaxtinimada Soomaaliland ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan 2017 waxaan jeclahay inuu sheego magacana anaaba igu jirto waa bedelna insha Allah taala iskaga bedelna anu laanta kama socdo Soomaaliland ka socnaa noogti waa ka socnaa insha Allah aynu rabnay heer Khaatumo rabeen ee anagu rabnaa qof kasta rabo waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay oo dadku u simeeyahay sharci dadku u simeeyahay wax qabad dadku u simeeyahay cadaalad baa horta weeye dadku doonaya laba arrimood way soo baxeen dawladnimada amba awoodda dawladda jilib arda gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCD waxa uu ku tilmaamay qorshaha uu magaca Soomaaliland kaga bedelayo in ay tahay in lagu wada qanco jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland oo beelaha darafyada Soomaaliland ay ka cabanayaan saami qaybsiga xilalka iyo kuraasta baarlamaanka Soomaaliland maadaama ay ka saami yar yihiin beelaha kale shir magaalada Hargeysa ay ku yeesheen labada dhinac oo ka kala socda Khaatumo iyo Soomaaliland ayaa lagu gaaray 5 qodob iyadoo sidoo kalena lagu heshiiyay in 10 bisha dambe ee July lagu kulmo magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer qodobadaasi waxa ku jira in la furo dastuurka Soomaaliland kaasi oo hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Garaad uu muddo badan u ololayn jiray